muuqaalkan waxaa la soo geliyey sanadan inaynu ku jirno bishii saddexaad ee March aad buuna u faafay dadka daawadayna waxay gaadheen ku dhawaad 6 milyan waxayna tahay dhacdada muuqaalkan gabadh ayaa waxaa ku dhacday arin aad u cabsi badan una naxdin badan arinteedana waxay noqotay arintii ugu cabsida badnayd sanadan aynu ku jirno dhacdadeeduna waxay tahay inay guriga kaligeed ay ku nooshahay ayna ka maqasho cod dhulka hoostiisa gaar ahaan meesha ku beegan sariirteeda dadka ku shuqulka leh arrimahan khawaariqda ah ee la yaabka leh iyo cabsida leh markii ay weydiiyeen sababta ay u soo baxayaan codadkan waxay ku jawaabtay anigay ma joogaan guriga xayawaano sida bisadaya iyo kuwaas oo codkan samayn kara aad bayna ula yaabeen gurigana wax ay go'aansadeen si ay u ogaadaan inay guriga oo dhan ay ku wada xidhaan kaameradona waxay duubeen waxay ku reebeen argagax aad u badan sida aad wada daawanayseen baa waxaa soo muuqday makhluuq u soo yara eeg basharka ama bini aadamka laakiin qaabkiisu aad u la yaab badan yahay caalamkana horey loogu arag raggii markii ay guriga ugu yimaadeen arrimahan ku shuqulka lahaa iyo iyadiiba naxdin aad u badan bay ku reebeen waxayna dooneen guriga oo dhan in ay baadhaan dhacdada naxdinta iyo cabsida leh ee ku dhacday gabadhan iyo muuqaaladii ugu cabsida badnaa ee laga dubay gurigeeda dhexdeeda waad wada daawateen oo wada aragteen dadka qaar oo kasoo falceliyay ayaa sheegay inay gabadhan gurigan uu la degan yahay jin dadka qaarna waxay yidhaahdeen waa xayawaanka lagu magacaabo bireek لما بنتعب احنا بنصبر لو